waftigan oo ka socotay xafiiska binaadamnimada u qaabilsan boqorka Sacuudi Arabiya ee magacooda loo soo gaabiyo KS Relief iyo sidoo kale madax ka socotay hay'adda IOM hay'adda barakacyaasha qaranka iyo sidoo kale mas'uuliyiinta gobolka iyo degmada Berbera iyo saraakiisha laanta socdaalka ee Berbera ayaa maanta kormeer ku soo maray goobaha lagu daryeelo dadka barakacyaasha ee inta badan ka soo qaxa wadanka Yemen iyo wadamada Carabta waxayna ay kormeer ku soo mareen qaar kamid ah xafiisyada hay'adaha laamaha dawladda sida xafiiska laanta socdaalka xafiiska maamulka gobolka Saaxil xafiiska shirkadda DB World dekada weyn ee Berbera iyo sidoo kale goobta lagu daryeelo dadka barakacyaasha ee ka yimaada wadamada Carabta ee ugu horeyso wadanka Yemen waxay halkaasi warbixino kala duwan ay ka dhageysteen mas'uuliyiinta gobolka iyo degmada Berbera iyo sidoo kale saraakiisha laanta socdaalka ugu horreyn waxa halkaasi hadallo soo dhaweynay waftiga uga soo jeediyay xokiyaha gobolka Saaxil Saacad Ciise Cumar iyo sidoo kale saraakiil iyaguna ka socotay hay'adda barakacyaasha qaranka iyo sidoo kale laanta socdaalka ee Berbera waxa weeye xafiiskan ku qaabilay maanta waxaan uga mahad celinay mashaariicdii ay hore ay ka fuliyeen uga mahad celinay sidoo kale waxaan u sheegnay in dadka soo qaxoontiga ahi ay isugu jiraan saddex qaybood ay ugu badan yihiin dad reer Soomaaliland iyo dad Soomaaliya oo transfer ku dhaafay oo reer Soomaaliya iyo dad kale oo ay Yemeniintu ugu badan yihiin qaxoontiga kale Yemeniintu ugu badan yihiin oo laga yaabo in dalal kale u heliyaan sida Syria oo kale ma aha markii koowaad ay noo yimaadaan waftigani runtii mar ayay laba goor hore ay wadanka yimaadeen runtii anigu aan goobjoog u ahaa 2017 xilli aan dadka Soomaalida laga soo celiyo Yemen laga dhoofin jiray madaarka Berbera runtii waxa ugu weyn oo socdaana waa xaqiiq raadin mashaariicda ay bixin jireen ama mashaariicda ay bixiyeen halkii ay martay iyo sida u shaqeysay aad baan loo soo dhaweynaa Berbera waa meeshii oo hooyada ahayd qaxoontiga ka imanaya Yemen ee uu ka soo degayay habeenba ka dambeeyay uu soo badanaya liibaan maxamuud ciise madaxa mashaariicda ee hay'adda IOM iyo sidoo kale Hulula oo iyana ah madaxa hay'addaasi ee caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa halkaasi ka hadlay ayaa ka warramay mashaariicda kala duwan ee ay ka qabteen magaalada Berbera ujeedada ugu muhiimsan ee halkan u yimaadeen wafdigu waxa weeye inay la kulmaan dawladda oo ay arkaan waxay halkan ka socday xagga Yemen marka la eego mashruucan Yemen ka socda ama aan ka soo celinayna Somali Retainers ka la yiraahdo ay maalgelisay King Salman Humanitarian and Relief Agency ama Case Relief aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa madaxda oo hogaaminaya Bashiir walaalkeen inuu halkan nala maaragtay noo yimaado ama uu ka soo qayb galo safarkaygan Somaliland, and upon arrival we do provide assistance with the generous support of KS Relief. Bashiir oo isaguna ka socday xafiiska boqorka Sacuudi Arabiya u qaabilsan dhinaca binaadamnimada ee magaceeda loo soo gaabiyo KS Relief oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in ujeedada socdaalkoodu ay ahayd sidii ay kormeer iyo indheyn in ugu sameyn lahaayeen mashaariicda ay Soomaaliland ka wada shaqeeyaan ee dhinaca qaxoontiga waanu sii wadi doonaa barnaamijyada aan ku taageerino dadka barakacyaasha xukuumadda Soomaaliland waxaan uga mahadnaqaynaa sida wanaagsan ee ay u soo dhaweyso dadka ay dhibaatadu ka socdaan dalalkooda si wacan ayaa loo maamula qaxoontiga loona daryeelaa laakiin waxay u baahan yihiin in gacanta lagu sahayo barnaamijyada kor lagu qaadayo dadkaasi ilaa inta uu dalkoodu nabad ka noqonayo